Bismillaahi Raxmaani Raxiim daawadayaal ku soo dhawaada wararka dan wadaag meediya qodobada aan maanta idin hayno waxaa kamid ah Somaliland oo jawaab ka naxisay dowladda federaalka Soomaaliya ka soo saartay wada hadaladii dhawaan uu guddiga u magacaabay madaxweyne Farmaajo booliiska Soomaaliya oo digniin culus oo amniga ah u diray shacabka ku nool magaalada Muqdisho musharaxiintii ugu badnaa ee doorashada Jubbaland oo kalsoonidii kala laabtay guddiga doorashada maamulkaas kuna eedeeyay inuu wato madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe maamulka Puntland oo xabsiga dhigay shakhsiyaad ra'iisul wasaare Khayre ka gudoomay lacag lagu dhisayo wada ku taala Boosaaso xildhibaanad madaxweynaha Soomaaliya ku sheegtay qabiyaaliiste beeshiisa u magacaabay laba safiir ciidankii ugu badnaa ee AMISOM oo isaga baxay Soomaaliya qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan inta aad muuqaalka daawan fadlan subscribe saar barteena YouTube-ka ee Dan Wadaag Media Puntland ayaa xabsiga dhigtay shakhsiyaad gaarayay 3 qofood kuwaas oo lacag $150,000 ka gudoomay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre warar dheeraad ah ay ka soo baxaya xariga khamiistii shalay ahayd lagu geystay magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in dadka la xiray ay ahaayeen 3 shakhsi oo caan ka ah gobolka Bari kuwaas oo ku howlana dhismaha wado ku taala xarunta ganacsiga Puntland ee Boosaaso xariga raggan 3 qof gaaraya ayaa waxa uu yimid kadib markii amar uu ka soo baxay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani oo uu ku sheegayo in raggan loo haysto in iyagu ay markaa baal mareen amaro iyo sidoo kale go'aano ka soo baxay madaxtooyada Puntland ee Garowe xubnaha la xiray ayaa magacyadooda waxa ay kala yihiin Nabadoon Maxamed Ibraahim Xaaji Faarax gudoomiyaha Amal Bank Boosaaso Maxamed Faahiye iyo sidoo kale injineer Maxamuud Maxamed Maalfo kadib markii dhawaanba madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe lagu eedeynayay in uu sameystay guddi doorashooyin oo isagu u qaasa isla markaana u ololeeya ayaa qaar ka mid ah musharaxiinta Jubbaland oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxa ay shaaciyeen in ay kalsoonidii kala laabtay guddiga doorashada maamulkaas kadib iyagu eedeynay u jeediyeen Axmed Madoobe inay u ololeynayaan musharaxiintan ayaa tilmaamay in xubnaha guddiga ay garab u yihiin Axmed Madoobe isla markaana ay u ololeynayaan sida ay hadalka u dhigeen sidoo kale waxa ay ku eedeeyeen in ay hareer mareen habraaci doorashada ee ahayd in dowladda federaalka Soomaaliya ay korjoogto ka noqoto iyo sidoo kale beesha caalamka Jubbaland ayaa iyadu dhawaan sheegtay in ay doonayso in Soomaaliya ka madax banaanaato doorashada xilliga ay dhacayso ciidan ka tirsan howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa ka baxay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxayna dib ugu laabanayaan dalalkooda hooyo warbixin laga soo saaray xafiiska wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya James Iswan ayaa lagu sheegay in ciidamadaasi ay guteen waajibaadkoodii qaran ee saarnaa Master Iswan ayaa ciidamadaasi gudoonsiiyay biladaha abeelgudka ee qaramada midoobay ay siiso ciidamada dhameystaa howlgalkeeda Somaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay guddi u dhawaan u magacaabay madaxweynaha Soomaaliya kuwa oo ka shaqeynaya in ay dhexdhexaadiyaan Soomaaliya iyo sidoo kale Somaliland xukuumadda Somaliland ayaa waxa ay soo saartay warbixin ay kaga hadlayso guddigii uu arbacadii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u magacaabay wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland oo iyadu markaa ka hadashay qodobadaas ayaa iyadu guud ahaanba ka soo horjeesatay inay wada hadlaan Soomaaliya iyo Somaliland iyadoo oo ay sheegtay in Soomaaliya wali ogsoon tahay wixii dhacay 1991 Somaliland ayaa hadalka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku sheegtay inuu yahay hadal xagal daacin ah oo uu ku hayo Somaliland iyadoo ay sheegtay maamulkeedaba in mar walba uu madax banaanaan doono qoraal digniin ah oo ka soo baxay xafiiska taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sarreeye Guuta Sakiye Xuseen Axmed ayaa lagu sheegay in laga bilaabo taariikhdu marka ay tahay 18 bisha 7 2019 hareeraha wadooyinka muhiimka ah ee gobolka Banaadir laga mamnuucay dhigista baabuurta ama gawaarida taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa muwaadiniinta gobolka Banaadir faray inay feejignaan dheeri ah yeeshaan goobaha ay dhigayaan gawaaridooda iyaga oo lagu wargelinayo in baabuurkii meel la iska dhigo hay'adaha amniga la wareegi doonaan taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sakiye Xuseen Axmed ayaa waxa ay sheegtay in ay booliisku la wareegi doonaan gaari walba oo meel cidla iska yaala isla markaana aanay jirin cidii la joogtay wuxuu taliska booliiska Soomaaliyeed ugu baaqayaa muwaadiniinta gobolka Banaadir inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si ay shacabka Soomaaliyeed uga badbaadaan dhibaatada cadawga iyadoo oo la farayo bulshada in baabuurkii ay ka shakiyaan ay ku wargeliyaan ciidamada amniga iyaga oo wacaya 991 ayay tiri taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sakiye Xuseen Axmed
xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan aqalka sare ayaa waxa ay eedeyn u jeedisay madaxweynaha Soomaaliya iyada oo ku eedeysay inuu lunsaday laba safiir oo ay sheegtay inay lahayd beelaha gobolka Sanaagdega. xildhibaanad Siciido Xasan Cusmaan oo kamid ah xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda gobolka Sanaag ayaa waxay madaxweynaha ku eedeysay in uu colaad gaar ah u hayo beelaha gobolka Sanaagdega gaar ahaan beesha Sanaag sida ay hadalka u dhigtay iyadoo warbaahinta kula hadlaysay magaalada Muqdisho ayaa waxay shaaca ka qaaday waxaana ay sidoo kale sheegtay in 2 sano uu madaxweynaha hor taagan yahay laba safiir oo ay sheegtay in beesheedu ahayd isla markaana madaxweyne Farmaajo uu u magacaabay labadaas safiir laba shakhsi oo ka tirsan beeshiisa ama ay isku heeb yihiin sida ay hadalka u dhigtay xildhibaanada iyadoo arrimahaas ka hadlaysay ayaa waxa ay tiri madaxweyne waxaad ogaataa in laga waayay wixii lagu qabay Soomaali oo dhan waa kugu hungowday ma doonayo in Soomaaliya iyo Somaliland ay heshiiyaan waxayna ka muuqataa guddiga uu magacaabay Somaliland faragelin ayuu ku sameeyay maana rabin in sidaas qurxoon wax u dhacaan ayay tiri xildhibaanada oo iyadu markaa ka hadlaysay eedeyna u jeedisay madaxweynaha Soomaaliya.